war degdeg ah oo ka yimid magaalada Muqdisho ayaa daawadayaal sheegaya in qarax lagu weeraray meel aan ka fogeyn madaxtooyada Soomaaliya. Laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya oo aan qaarkood la hadlay waxay ii xaqiijiyeen in qaraxa lagu weeraray halka loo yaqaano dhismaha hooyooyinka ama si kale hadii aad u taqaano kasoo horjeedka tiyaatarka qaranka. ilaa iyo hadda lama soo sheegin wax qasaaran nafeed ah oo halkaasi ka dhacay, laakiin laamaha ammaanku waxa ay sheegeen in baaritaano ku sameyn doonaan waxa qarxay iyo sida ay goobtaas oo aad loo ilaaliyo ay ku soo gaareen. madaxtooyada Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan oo la hadalnay waxay noo sheegeen in mas'uuliyiinta wadanka ugu sareysa ay bad qabaan. dhanka kalese waxa xogta aan helayno ay sheegaysaa in taliyaha cusub ee booliiska Soomaaliya oo dhawaan la magacaabay uu doonayay inuu ka soo baxo halka loo yaqaano Command Buluusiya oo ku dhex taala madaxtooyada Soomaaliya ama ka soo horjeedka wasaaradda warfaafinta, isaga oo daneynaya inuu gaaro qaybo kamid ah talisada booliiska adeegsan lahaana wadada qarax uu ka dhacay ayaa ugu dambeyn laga baaqsaday in uu safarkiisii uu ku tagi lahaa ama booqashadii uu ku tagi lahaa xarumahaasi booliiska uu ku tago. lama oga in bartilmaameedku uu ahaa taliyaha booliiska iyo in kale, laakiin waxan oo dhan waxay dhacayaan taliyaha booliiska oo doonayay in jidkaasi uu adeegsado daqiiqado ka hor iyo sidaas oo kale madaxtooyada ay u dhowdahay goobta la weeraray.